waxay ka mid ahayd shabakadihii ugu waaweynaa ee bilowga internetka sagaashameeyadii, iyadoona soo shaabixin search engine-ka maanta la isticmaalo ee Google, Facebook iyo Twitter. Waxay noqotay shabakadii ugu saameynta badnayd ee bilowgii waayaha internetka. Waxaan maanta qaadadhigi doonaa waa Yahoo. Waxay ka mid ahayd shabakadaha ugu wanaagsan ee casriga bilowga internetka loo soo raadsado macluumaadka, wararka, kala iibsiga suuqa online-ka iyo weliba xayeysiinta. Shabakada aan ka hadlayno ma aha mid kale ee waa Yahoo. Yahoo ayaa waxaa la aasaasay 1994 waxaana dhidibada u taagay Jerry Yang iyo David Villo oo ahaa arday wax ka barata jaamacadda Stanford ee dalka Mareykanka. Waxayna baran jireen cilmiga electrical engineering. Waxayna aad u yaqaaneen kombiyuutarka iyo sida uu u shaqeeyo kombiyuutarku, laakiin mayna ahayn kuwo aad wax uga yaqaana ganacsiga iyo sida loo maareeyo ganacsiga. Daawade, haddii ay tahay markii ugu horeysay ee soo booqato bartan YouTube-ka ku leenahay, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe noo saarto, gambaleelkana furato. Haddii aad ka hesho muuqaalkana like aad saarto, waad ku mahadsan tahay. Waxaan maanta muuqaalkeennan ku qaadadhigi doonaa shabakadii ugu horeysay ee barta internetka la soo gasho guulo waaweyn, gaadhana halkii ugu sarreysay ee guusha, ugu dambeyntiina dhex muquuratay hirarka waaweyn ee guuldarrooyinka. Sida aan horey usoo sheegnay, shabakada Yahoo ayaa waxaa aasaasay laba wiil oo dhigta jaamacadda Stanford oo la kala dhaho Jerry Yang iyo David Villo, waxayna ugu magac dareen bilowgiiba David and Jerry Guide to the World Wide Web. Sanadkii koowaadba in ka badan 170,000 oo qof ayaa maalin kasta si maalinle ah u soo booqan jirtay shabakada Yahoo. Maalinka ka dambeysana way sii kordhiyeen tirada dadka isticmaala shabakadan. Arrinkan ayaa wuxuu farxad geliyay mulkiilayaasha, sidoo kale waxaa walwal iyo stress ku hayay mulkiilayaasha sida ay u maareyn lahaayeen mashruucan aadka u ballaaran iyo shabakadan u baahan maareynta ganacsi. Waxayna magacaabeen hogaamiye cusub oo la dhaho Tim Google, kaas oo ka bedelay waxyaabo badan shabakada, bilaabayna inuu u furo xayeysiisyo shabakada. Waxaana sidaa ugu bilowday waayahoodii guusha, wax kastana waxay u socdeen sida ay iyagu rabaan. 2001 Yahoo ayaa noqotay shabakadii ugu caansaneyd adduunka, waxa ayna sidaasi ahayd 5 sano oo xiriir ah. Yahoo ayaa noqotay isha qof walba oo barta internetka ka soo booqda marka uu damco inuu macluumaad soo raadsado. Yahoo ayaa bixin jirtay adeegyo kala duwan sida Yahoo Mail, Yahoo Broadcasting, Yahoo Messenger, Yahoo Finance. Ganacsado walbana hadafkiisu wuxuu ahaa in astaanta shirkadda ganacsi ee uu isagu leeyahay uu mar uun kasoo garab muuqdo astaanta ama loogada Yahoo si ay u gaadho dad tiro badan. Maruu sheegay Jerry ayaa wuxuu yidhi xayeysiisku wuxuu noqday halbowlaha ganacsiga annaga ama isha dhaqaale ee ganacsiga annaga. Waxayna noqotay shabakadan mid aad loo hadalhayo, saameynteedana maalinka ka dambeysa marka isku sii shareerayso. Isla sanadkii koowaadba waxay bilaabeen iibinta saamiyada, waxayna maalinkii koowaad halkii saami la gadayay $13, halka maalinkii labaad halkii saami qiimihiisu kor u kacay una gaaray $43, iyagoo mashruucan ka faa'iiday $300 milyan. Yahoo waxay dul hehaabaysaa weli waayaheedii guulaha, welina maynan gaarin halkii ay dhulka lugta la weeday kana hadhay miladeedii. 2007 waxaa dakhli ahaan u soo xarooday Yahoo $7.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ahaa. Isla sanad kadib waxaa damca ka galay shirkadda Microsoft, waxayna u soo bandhigtay inay Yahoo ku gadato $44.8 bilyan, midaasoo ahayd qiimihii ugu sarreeyay ee abid shirkad lagu baayacay. Laakiin Yahoo waxay martay wadadii madoobeed, waxayna qaadatay go'aankii ay ku burburi lahayd iyadoo gacanta ku saydhay Microsoft oo diiday heshiiskaas. Markii ay ku cuslaadeen waayuhu, 2017 waxay iibsaday Verizon iyadoo siisatay lacag 10 jeer ka yar midii ay Microsoft u soo bandhigtay 2008. Midan ayaan dhihi karaa ama kusoo duuduubi karaa Yahoo ma ayna ahayn mid go'aan qaadasho fiican. Shabakada Yahoo ayaa dayacday fursado badan oo maanta ka dhigi lahaa mid dhagaheena iyo maskaxdeennaba weli ku sii nagaada. Qaladaadkaas ayaa ahaa qaladaadkii ugu horreeyay ee gashay, waxayna Yahoo ayaa soo iibsatay adeegyo badan kuwaasoo u horseeday khasaaro. Adeegyadaas waxaa ka mid ahaa Hotjobs oo ay soo siisatay $436 milyan, halkii ay ku iibisay markii ay waayuhu ku cuslaadeen $225 milyan. 1999 waxay iibsatay Broadcasting.com, waxayna ku iibsatay $5.7 bilyan. Adeegan ayaa ahaa adeeg raadiyo oo internetka ka dhex shaqeeya. 2002 waxay iibsatay GeoCities, waxayna siisatay $3.5 bilyan. Khasaaro mooyeen wax faa'iido ah ma uuna u soo kordhin shirkadda. Waxay sidoo kale iibsatay Tumblr, waxayna siisatay $1.1 bilyan. Kuwaas ayaa ahaa adeegyadii ay gadatay ee u horseeday khasaaraha
una furay dariiqii ay ku burburi lahayd shabakadani. Bal aynu dib u milicsano fursadihii dahabiga ahaa ee hoos maray shabakadan oo haddii ay mid un ku guuleysan lahayd maanta Yahoo ka dhigi lahaa mid ilaa iyo maanta dhagaheena iyo maskaxdeennaba ku jirta. Ugu horreysay ayaa ahayd 2002 markii loo soo bandhigay Yahoo inay ku gadato Google qiimo dhan 3 bilyan, laakiin Yahoo fursadan way hoos martay. Yahoo ayaa isku dayday inay iibsato 2006 Facebook kuna iibsato 1 bilyan, laakiin qiimahaas waxaa diiday mulkiilaha Facebook ee Mark Zuckerberg. Reportigii soo baxay 2006 ayaa wuxuu sheegayaa haddii 1.1 bilyan looga dhigi lahaa in uu Mark Zuckerberg yeeli lahaa qiimahaas inay ku gadato Yahoo, laakiin waxaa qiimahaas diiday boordigii ama guddigii Yahoo. Waxaa sidaas uga dayacmay fursado dahabi ah oo haddii mid ka mid ah uun ay ku guuleysan lahayn maanta Yahoo ay noqon lahayd mid ku dhex jirta nolosheena caadiga ah. Haddii mid inaga mid ahaan lahaa go'aamiyeyaasha go'aaminaya go'aanka masiiriga ah ee shabakadda Yahoo, waxaan maanta hubaa in Facebook iyo Google-ba ay ku jiri lahaayeen gacanta Yahoo ayna ku heli lahayd qiimo ka yar midkii ay ku soo gadatay Broadcast.com ee ahaa 5.7 bilyan. Haddii aan isku dayo inaan soo koobo, Yahoo waxaa suuqa ka saaray kuna codhiyay booskii tartamayaal u jeel qabay guusha, dhigay adeegyo ka duwan midkii hore loo arki jiray iyo midkii lagu yaqaanay Yahoo. Waxaa soo baxday Google oo wadata aalado cusub iyo barnaamijyo cusub oo ka xiiso badan kana casrisan kii hore loogu arki jiray Yahoo. Sidoo kale waxaa soo baxay Facebook oo ka duwan gebi ahaanba. Waxaa kaloo suuqa ka saaray ama qadka ka saaray go'aan qaadasho xun oo liidata, iibsashada adeegyo aan anfacaynin shabakadda iyo diidmada shabakado wax ka bedeli lahaa mustaqbalka iyo wadada ay shabakaddu ku socoto. Waxaan iyaduna meesha ka maqnayn hogaamiyeyaasha oo iyaguba mar kasta la bedeli jiray. Waxaana soo maray hogaamiyeyaal kala duwan kuwaas oo aragtidooda hooseysay lahaana aragti gaaban. Yahoo ay heli lahayd hogaamiye fiican waxay ahaan lahayd maanta Yahoo mid ilaa iyo maanta u shaqeysa sida Facebook iyo Google. Waxay ahaan lahayd mid u shaqeysa sidii sagaashameeyadii iyadoo lagu jiro dunidan casriga ah. Yahoo ayaa maanta jirta, laakiin waxaa iskale Verizon. Waxaan intaa kusoo gabagabeyneynaa mawduuceennii aanu kaga hadlaynay hoos u dhac ku yimaaday shabakadda Yahoo. Haddii aad ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan ila soo gaadhay, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Asalaamu calaykum waraxmatullah.